وحنا وجنالك الددوينها سبسكرايب صار أو كصوبير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي إن قيمها بدن أكو حرن جنال كددوينها يوتيوب. ما أنت وحين برنامج كأنك هذا دونا. calaamada muujinaya daciifnimada shakhsiyadda iyo qaabkii uu qofka uga dheeraan lahaa inuu noqdo qof ay shakhsiyadiisu liidato qof ay shakhsiyadiisu hooseyso haddii aad doonaysid inaad ka dheeraato daciifnimada shakhsiyadda rabtidna inaad noqoto qof ay qofnimadiisu sarreyso haddaba waa inaad ka dheeraataa arrimaha soo socdeen hadda sheegi doono kow waa go'aan qaadashada qofka oo awood u yeelan kari waaya in uu qaato go'aan qofku haddii uusan wax go'aan ah lahayn go'aan cad uusan qaadan karin waa qof ay shakhsiyadiisu hooseyso qofka ay go'aan qaadashada ka xumaato waa qof ay mar walba baqtin ku jirto waa qof aan go'aan qaadan karin haddii aad weydiisid maxaa kugu dhacay oo go'aanadaada kuugu taabageli la'yihiin wuxuu kugu jawaabayaa ma aqaan ma garanayo waa qof cabsanaya haddii aad doonaysid inaad noqoto qof ay shakhsiyadiisu sarreyso go'aan cad qaado go'aan kama dambays ah qaado ka dhig go'aanadaada kuwo waaweyn oo shaqeeya talabaadi waxa ay tahay qofka oo awood yeelan kari waaya inuu dadka hortooda ku hadlo waa qof aan awood yeelan karin inuu qofka uu hortaagan yahay si fiican ula hadlo haddii jeer marka uu hadlayo hareerihiisa ayuu fiiriyaa indhaha ayuu isku qaqabtaa noqo qof aan cabsi lahayn qofka ku hortaagan waa shakhsi sidaadoo kala maxaad uga baqaysaa indhaha ka fiiri si dhiiran oo awoodi ku jirto ula hadal maxaad isu liidaysaa maxaad indhaha uga maranaysaa maxaad u foorarsanaysaa si direct oo fiil indhihiisa caadi ula hadal oo shakhsiyadaada muuji markaan ku leeyahay si dhiiran qofka ku hortaagan indhaha uga fiiri kuma lihi qofka ku hortaagan indhaha ku gubo gidigiisaba ka cabsi waxaan ku leeyahay qofka markaad la sheekaysanaysid u fiiri oo ula hadal qaabaadan isagana wax ku yeelaynayn adigana aadan shakhsiyadaada ku liidayn arrinta saddexaad waxa ay tahay qofka oo xakameyn kari waaya shucuurtiisa qofku waa qof markaaba cadhoon karaya arrin uusan jeclaysan ayaa dhacaysa arrintaasi waxa ay sababaysaa inuu qofku markiiba ay ka muuqato cadhadu awood uma laha inuu cadhadaasi xakameeyo uu farxad ku bedelo sidoo kale waa qof ay waxyaabaha kale markaaba ay saameeyaan qofa waxa uu arkaya dad kale oo wax ka sheegaya dad kale oo dhaleecaynaya qofku markiiba wuu isbedelayaa waa qof ay si kadisa wejigiisa ay uga soo muuqdaan cadhada murugada farxadda calaamadahaasi oo dhan waxay ku tusinayaan qofka inay shakhsiyadiisu liidato arrinta afraad waxa ay tahay qofka oo noqdo qof ashkata badan arrin yar baa qabsanaysa qof kale ayuu tagayaa waa ashkatoonaya sidan iyo sidan bay haysata dhibaatadan bay haysata xaggan iyo wax ka qaldan yihiin ma aha shakhsi isagoo isku kalsoon shakhsigani ma aaminsana inuu ilaahay siiyey maskax uu isagu carqaladaha iyo dhibaatooyinka soo wajaha uu ku xallin karo arrinta shanaad waxa ay tahay qofka oo nolol maalmeedkiisa bays uga dhiga nolosha dadka kale ma jirto hab gaar ah isagu u noolaado haddii uu dhar xidhanayo waxa uu kaga dayanayaa qof kale uu yaqaan amba shakhsi caan ah sida fanaan caan ah amba ciyaartooy caan ah haddii uu timo xiiranayo waxa uu kaga dayanayaa shakhsi kale haddii uu labisanayo waxa uu labisanayaa sida shakhsi kale qofkan daily routine lifekiisu amba nolol maalmeedkiisu waa kuwa ku dhisan ashkhaas kale haddaba qofkaasi sida tooska ah nolosha dadka kale u koobigaraynaya doonayana inuu habkaasi u noolaado ma hab fiican oo wax dhib aan lahaynba mise waa iska caadi runtii waa qalad qofka noocaasi waa qof ay shakhsiyadiisu aad u liidato waxna loo baahan yahay qofkaasi inuu nolol maalmeedkiisa update ku sameeyo inuu dib u eego oo uu wax ka bedelo habka uu nool yahay una noolaado qaab uu isagu leeyahay aaway shakhsiyadaadii aaway awoodahaagii aaway dadnimadaadii maxaad noloshaada oga dhigtay mid ku daba xidhan ashkhaasta kale u noolow si adig gaarku ah jooji inaad wax walba dadka kale kaga dayato dadka kaga daya wixii wanaag ah laakiin ha kaga dayanin wax waliba oo noloshaada ku saabsan halkaasi haynuugu joogo barnaamijkeena maanta intaynu barnaamijyo dambe sugima doonaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu وحنا وجنالك الددوينها سبسكرايب صار أو كصوبير.